السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيبتي لبعض مقال كأنه قال لي سيدي عقبضة دي قوشا وعين وروسو قادنا فرق ميدا سيدي عقبضة دالكاين مقال كأننا كو قادني دورنا فرق ميدا مقا عيقوا جمعال الظاهرة الكرينة واسل ميديا نقو صوبي رقم من ضغط بهوين تنقو تعن مقال كالله يكسار سينا الشرقري كزو دواد صاحب يال مقال كأننا قورتن عن قبضة شنعات آمينات قرعن culimada ku takhasusay cilmiga maskaxda aadamuhu waxay ku qiyaasaan in qofka maalintii ay soo marto 160,000 oo fikradood boqolkiiba 80 ka mid ah fikradahaasina ay yihiin fikrado guracan oo ka soo horjeeda danihiisa iyo maslaxadiisa loona baahan yahay qofku si uu caqabadan uga gudbo inuu dhaafo amaba uu ku fikiro xagga positive-ka ah caqabada lixaad duruuf balaas go'aan ayaa waxa ka dhalanaysa natiijo wanaagsan xeerkani amaba caqabadani waxay ku leedahay si aad uga gudubto caqabadan waa in aad ka qaadataa amaba aad ka soo qaadataa go'aan wanaagsan si aad uga gudubto caqabadani caqabada toddobaad hanjabiyaashu waa dadka ku hanjabiya haddii aad u sheegto ama aad uga waranto waxyaabaha aad hiigsanayso ku odhanaya maadaa gaadhaya maadiga u qalma iyo waxyaabaha la mid ah caqabadana waa ta ugu adag dadka doonaya inay guulaystaan si aad caqabadan uga gowaatana arayga ugu horeeya ama talaabada ugu horeysa waa inaad ka fogaato dadkaasi caqabada sideedaad xumaansaadsigu waa qofka uu marka waxa uu doonayo inuu ka guul gaadho amaba rababa inuu wax ka guul gaadho ama shay ka guul gaadho waa qofka markasta ka fisha wax xumaan ah amaba wax xun taasina waa caqabad ka mid ah caqabadaha hortaagan tanna waxay ku leedahay ka filo waxa aad doonayso amaba waxa aad doonayso inaad ka guul gaadho markasta waa inaad